إنا لله وإنا إليه راجعون waxaa xalay ku geeriyooday magaalada London wariyihii weynaa ee Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye Maxamuud Cabdi Cali Ducaale oo inta badan dadku ay ugu yeedhi jireen Ducaale Ilaahay uu naxariistay Ducaale muddo dheer buu ka soo shaqeynayay warbaahinta Soomaalida hadday noqoto Radio Muqdisho BBC-da iyo warbaahinta kale madaxa bannaan ee Soomaalida Axmed Saciid Cige oo dhinacayga taagan ayaa ka mid ahaa raggii isku mar ay shaqada ka bilaabeen Radio Muqdisho isagaan marka hore siinaya bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay ha u naxariisto wariye saaxiibkayo walaalkayo Maxamuud Cabdi Cali Ducaale Maxamuud Cabdi Cali Ducaale horta Maxamuud Cabdi Cali la yiraahdaa Ducaale waa naanayso wax loogu bixiyo ardaydu markan dugsiyada hoose dhexe riwaayado yar bay dhigaano soo odaybu matalayay marka yaa Ducaale loogu bixiyo sidoo ii sheegay ilaahay u naxariisto xalay ku geeriyooday magaalada London oo ay taariikhduna ay tahay in 17ka bisha July 2026 ilaahay u naxariisto Maxamuud Cabdi Cali Ducaale anna waxaan isku baranay Radio Muqdisho raggan ugu imi buu ahaa 7-aadkii ku biiray Radio Muqdisho aniguna 1976 bishii May ayaan ku biiray markaasaan dabadna ugu imi isaga rag far badan oo aan tirin karayn imaka oo markaasi markii ay sekondariyada ka soo baxeen ee shaqadii qarankana ay soo dhameystay badeedna shaqada ayaa dabadna shaqada dawladda qofkii doonayay qofkii jaamacad galaya markaa idaacada lagu qoray qaybta wariyeynimada ayuu markaa bilaabay Radio Muqdisho waxaan ugu imi isagoo barnaamijka weyn oo beeraha la yiraahdo wax soo saarkana aad loo dhiirigelinayay uu markaasi isagu soo saaray tabiyaba uu ka ahaa oo wasaaradda beeraha kaliya ma aha inta wakaaladooda la xiriirda ay aad u badnayd wakaaladda horumarinta beeraha wakaaladda cagafafyada onat libsoma oo Liibiya inaga taageerisay mashruucii faanoole beerihii waaweynaaye afgooye iyo kuwii janaale iyo gidda iyo shalambood baad celintii warkana uu akhri jiray markaan anigu shaqeynay 6 bilood meelaha ayaa dagaalkiiba bilaamayay oo saansaantiisii ay jirtay 1977kii ay dagaalkii weynaa isku qaadeen labada dal ee Soomaaliya iyo markaasi Itoobiya dabadeetana qaybta wararka lagu wareejiyay 3 wariye ayaan ka mid ahaa anigu oo Ducaalena uu ku jiray Maxamuud Cabdi Cali Ducaale aniga iyo ninka la yiraahdo Maxamed Aadan Xirsi Teerna oo isna dhintay markaa qaybta akhrinta warka tafatirayaal waxa noo ahaa Yaasiin Xaaji Ismaaciil oo isagu xafiiska madax ka ahaa ilaahay u naxariisto uu geeriyooday iyo 2 nin oo nool imaka oo London degan Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar iyo Aadan Nuux Dhuule 3 shifti baa la galay saasay hayd waxa kale oo reserve ahaa oo hadii qofka wax ku yimaadaan nin tafatira noqon kara oo Saciid Faarax Maxamuud sanadda buu ku noolyahay iyo Allah u naxariistay Maxamed Carab Falax markaasi baan isbaranay oo isku unit noqonnay aad iyo aad Maxamuud Cabdi Cali Ducaale sidoo halka uga shaqeynayay 1983 ayuu ku biiray laanta af Soomaaliga ee BBC-dana mar dambe anigu markan 1999 aan ku biiray uu shaqeynayay markaasi marka 2 sanadood baan shaqeynay labadii kun buu ka tagay marka ninkaasi wuxuu ahaa nin hawlkara nin wariye caana nin cibaadada ku wanaagsan nin bashaasha nin aftahana nin taariikhda iyo dadka yaqaana iskuulkana markii hore waxa la sheegay inuu kaga soo baxay iskuulka hoose kaga soo baxay degmada Allay Baday ee gobolka Gabiley isla markaana markii dambana iskuulka dhexe uu Sheekh magaalada Sheekh iskuulka sarena Faarax Omar ayuu kaga soo baxay shaqadii qarankana dayaxa ayuu joogo imaka boos miran noox oo reer Carigaabo hadeeran wada fadhinay baa ii sheegay inuu dayaxa joogay oo dayaxa uu macallin ahaade shaqadii qaranka ilaahay ha u naxariisto mar dambena halkan Hargeysana Home Cable TV ayuu ka shaqeynayay oo halkan aan intii dambe wada joognay isaga iyo Cabdisalaan iyo dadka halkan ama noo santarahay ilaa cawka ku dhintay halkan ilaahay u naxariisto ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo Maxamuud Cabdi Cali Ducaale muddooyinkii dambe waxa uu ku xanuunsanayay magaalada London oo sariiryaal u ahaa Maxamuud Cabdi Cali Ducaale anigu BBC-da ayaan ugu tagay sida Axmed Saciid Cige sheegay raggii 83kii 83kii baan ku qiyaasay inuu BBC-da bilaabay anigu 90kii markaan BBC-da bilaabay uu shaqeynayay inkastoo part time oo ahaa
muddo dheer baan wada shaqaynay sida dad fara badan ay ka marakacayaan wariyayaasha qaar baa wararkoo kaliya ku fiican oo madadaalada aan ku fiicnayn iyo barnaamijyada kale ducaale wuxuu ahaa nin barnaamijyada gebigooda oo dhan wada mara dalabaadka hadday tahay wararka hadday tahay barnaamijyada kale noocay doonaan ba ha noqdaan haddii ay yihiin sida Axmed Saciid Ciga uu sheegay waxaan uga markhaati kacayaa inuu ahaa nin weji furan oo aan laga didin nin aragiis iyo la joogitaankiisa lagu farxo geeridu waa xaq waxaanu halkan tacsi uga diraynaa qoyskiisii ehelkiisii qaraabadiisii iyo asxaabtiisii faraha badnayd ee daafaca caalamka ku kala nool geeridu waa xaq ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo ehelkiisii iyo qaraabadiisii iyo asxaabtiisiina samir yeeybaan ilaahay ha ka siiyo axmed waxaad ku daran lahay cabdisalaano waad mahadsantay tacsidii un baan doonaya inaanan ku daro daya asxaabtiisii kale raggii faraha badnaa oo ilaa xalay la soo hadlayay ilaa saaka aynu soo wada shaqaynay gaar ahaan BBC-da oo dee aanan magacyadooda imika halkan laga gayoonaynin markaan soo dhigay subaxii hore bartayda Facebooka taariikhdiisii markaa iyo walaaladii halkay joogaan waan la hadlay waan tacsiyeeyay xaaskiisii iyo carruurtiisii oo la dhada jooga waad ogtay cabdisalaano dhowr jeer ood ku booqatay gurigiisa maalmahan dambe waxaan kula aad ugu mahadnaqaynaa Cabdilaahi Xasan Fadal Sool oo nin aad uga warhaya ragga jilicsan imika iska wada jilicsan iyo qaarna ay dhinteen mar walba la fadhabar waxa xagga warka iyo xagga xiriirinta waan isku xidhanay anagu raggii hore wariyaashaha ilaahay dahaw naxariisto كمارن شيغي بانجيغا oo la jaar dahabalaas u kaydso lacagtaada mar kasta iyo meel kasta ku dhex isticmaal adeegyada Somtel iyo iDahab ku xidha akoonkaaga bangiga oo ka dhex maamula lacagtaada u soo wareegoo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamula abka dahabalaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo deg App Store iyo Play Store abka dahabalaas farxadda iyo wadajirka qoyskaagu waa adeegsiga xawaaraha sare leh ee internetka Telesom Fiber ku xooji ganacsigaaga internet xawaare sare leh oo aan kala go'ayn shirkadda Telesom waxay casriyeyn kuugu samaysay internetka fiberka guryaha iyo ganacsigaba si aad u soo gashato fiberka Telesom booqo xarunta kuugu dhow amba ka dalba website-ka telesom.com sidoo kale waxaad garaaci kartaa lambarka xidig 121 Telesom Fiber waa internetka ugu xawaaraha sareeya dalka